gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayeer ayaa ku dhawaaqay gudida qabanqaabada ee 18 May oo ka kooban 15 xubnood oo kala ah anigoo gudoomiyaha gobolka Cabdo Axmed waxa gudoomiyaha degmada Sareebaan oo meeyarkiya xogayaha fulinta ee dawladda hoose xogayaha fulinta ee gobolka agaasimaha maamulka lacagta iyo dawladda hoose taliyaha qaybta ee gobolka isuduwaha wasaaradda warfaafinta isuduwaha wasaaradda awqaafta diinta gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha ururka naaw ee gobolka iyo 5 xildhibaan oo golaha deegaanku ay soo magacaabayaan magacyadooda gudidaas ayaa waxay noqon doonaan oo tiradoodu ah 15 xubnood weeyaan ayaa waxay noqon doonaan gudida qabanqaabada 18 May ee magaalada Boorama degmada Boorama ee gobolka Awdal dhanka kale gudoomiyaha degmada Dila ayaa sheegay inay ku jiraan isku diyaarinta 18 May arintaasina uu yimid magaalada Boorama inay ka wada hadlaan barasaabka gobolka Awdal maanta gobolka waxaan u nimidnay diyaar galowga 18 May dhamaantayna maamulkii degmada hadii ay tahay gudoomiyaha maxkamadda gudoomiyaha degmada gudoomiyaha taliye saldhiga xogayihii dhamaan waan wada soconaa waxaan u nimidnay gudoomiyaha gobolka si aan ugu diyaar galoobi lahayn 18 May Hodan Caafi shabakada wararka ee News magaalada Boorama